السلام عليكم صاحبيال نبي زكريا waxa uu kamid ahaa ambiyada loo soo diray reer bani Israa'iil waxaana la oran jiray Zakariya ibn Barqiya waxa uu ka dambeeyay Uzair alayhi salaam waxa uu ilma la'aan gaaray 100 sano waxaana maanta isla fiirineena taariikhdiisa nabi Zakariya waxa uu ahaa nabi caadil ah oo kamid ahaa ambiyada alle kana soo jeeday reer bani Israa'iil waxa uu ahaa nin ku caan baxay cibaadada samirka iyo daryaalka dadka masaakiinta ah qisada nabi Zakariya waa mid xambaarsan sabar iyo rajo iyadoo alle uu siiyay wiil mucjiso ah kadib markii uu nabi Zakariya noqday mid waayeel ah allana uu ka dalbaday in uu siiyo wiil ka dhaxlo nabinimada iyo risaaladana sii wado alle ayaa kadib ugu bishaareeyay wiil oo uu isaga soo magacaabay oo la yiraahdo Yaxye kadib ayuu nabi Zakariya isweydiiyay sidee adigoo waayeel ah u dhali doontaa wiil xaaskaagana ee tahay mid badalees ah alle waxa uu ugu jawaabay markaagii hore Zakariya waxaan ka abuurnay dhoobo iyo meel eber ah haddana waxaan ka dhalineynaa wiil nabi Zakariya waxa uu ka soo jeeday qoys sharaf leh oo nabinimo iyo cibaado ku caan baxay waxa uu ahaa nin si joogto ah ugu tiirsan cibaadada iyo adeegista alle nabi Zakariya waxa uu si gaar ah ugu xil saarnaa in uu daryeelo Maryamana waxa ay ahayd hooyadii nabi Ciise Maryama oo ahayd gabar aad u cibaado badan oo ku cibaadaysata macbadka nabi Zakariya waxa uu arki jiray mucjisooyinkii cajiibka ahaa ee Maryama ku dhici jiray sida inay hesho cunooyin kala duwan oo aan la filaynin in la arko nabi Zakariya mucjisooyinkaas ayuu la yaabay waxa uu weydiiyay Maryama halka ay ka hesho cuntooyinkaas waxa ayna ugu warantay in ay cunooyinkaas ka hesho xagga Allah ee kamid tahay awoodaha uu leeyahay alle Zakariya waxa uu ahaa mid da'weyn oo ka muuqata murugo badan oo ku saabsan ilmo la'aan maadaama maamulka diinta iyo hogaaminta reer bani Israa'iil uusan jirin cunug isaga ka dhaxli doona xaaskiisana ay ahayd mid madhaleys ah kadib nabi Zakariya kama uusan quusan alle oo waxa uu go'aansaday in uu alle weydiisto wiil kaasoo ka dhaxli doona xigmadda iyo hanuunka nabinimada oo sii hogaamin doona reer bani Israa'iil alle waxa uu ka aqbalay ducadii nabi Zakariya oo waxa uu u soo diray malaa'ig oo ugu bishaareeya wiil la oran doono Yaxye oo noqon doona nabi cibaado badan samir badan oo ku sugnaada hanuunka alle bishaaradaanina waxay u timid nabi Zakariya iyo xaaskiisa ayagoo ah kuwa waayeel ah nabi Zakariya waxa uu ka codsaday alle calaamad uu ku ogaan doono in xaaskiisa ay uur u qaaday ee uu dhali doonto wiil mucjiso ah allana waxa uu u sheegay calaamad ah in uu 3 maalin uusan hadli doonin oo la hadli doonin dadka iyadoo carabkiisa uusan awoodi doonin in uu dhaqdhaqaaqo marka laga reebo in uu u tasbiixsado alle uu xuskiisa kaliyana uu wado kadib waxa uu imaaday calaamadihii loo sheegay nabi Zakariya isagoo maalmahaasi ku qaatay in uu alle ku shukriyo una mahad celiyo maadaama laga aqbalay ducadiisii nabi Zakariya waxa uu ahaa nin si weyn ugu dadaalay cibaadada iyo dadka hanuunintooda wuxuuna dadka baray alle ka cabsiga samirka iyo in ay cibaadada si joogto ah ugu noqdaan nabi Zakariya waxa uu ahaa mid alle ugu mahadnaqa nimcada uu siiyay isagoo ku qanacsanaa go'aanka alle mar walba nabi Zakariya waxa uu la kulmay dhibaatooyin badan oo kaga yimid qaar kamid ah dadka reer bani Israa'iil oo diiday in ay rumeeyaan nabinimadiisa iyo in ay ka leexdaan camaladooda xunxun waxaana la sheegaa in uu geeriyooday nabi Zakariya isagoo dulmiga iyo cadaadiska ugu imaanaya dadkiisa ku samrayo nabi Zakariya waxay xambaarsan tahay qisadiisa casharo badan oo ku saabsan alle ka cabsiga samirka iyo kalsooni in lagu qabo ducada waxa ayna muujinaysaa in alle awood leeyahay uuna awoodo wax walba in uu sameeyo iyadoo aan la eegeenin xaaladaha nolosha ee markaasi qofka uu ku jiro nabi Zakariya waxa uu tusaale u yahay qof kasto ku samra imtixaanka alle oo tala saarta waxa uu ku guuleystay in uu ducadiisa alle ka aqbalo uuna siiyo wiil cibaado badan qisada nabi Zakariya waxa ay xasuusinaysaa in rajada alle aan laga quusan oo alle loo noqdo xiliyada wanaagsan iyo xiliyada ay wax walba adag yihiin haddii aad ilowday in aad muuqaalkan like saarto fadlan isku day inaad muuqaalka like gareyso waxa inoo balan ah muuqaalka xigo nabadgelyo